gacmaha kor u taaganaysaa kadib ilaa baryaysaa marka muraadka aad leedahay xaajada aad leedahay ilaa weydiisanaysaa insha allahu tacaala marka suuradda wax walba waad ku helaysaa bini albaari arsaaqda waxaa dhahnay kalmadar sida roobkii kuu soo shumaysaa kusoo dhowo muuqaal kaloo xiiso badan adiga mahadsan laagta ku dhufo waad mahadsan tahay subscribe ku dhufo si aad noogu soo biirto oo aad uga mid noqoto bahda Tilmaan Production ee malaalka furo si aysan waxba kugu dhaafin mahadsanid bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa akrami khalqillaah sayidina mowlaana muxamedin nabiy lumiy waalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin wabacd daawadaashan sharafta leh muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa insha allah suurad oo ilaahay dhex buuxiyey asraar fara badan cajaa'ib fara badan oo ilaahay dhex dhigay suurad mujarabaad fara badan laga sameeyey oo qofkii akhrisado dhammaan umuurihiisa oo ilaahay u taseerinayo dhammaan wuxuu rajaynayo haddii maal hadduu maal ahaan lahaa oo risqi ahaan lahaa oo ilaahay arsaaqad fara badan qofkaas oo siinayo oo waliba risqiga sida roobkii oo gudi doono insha allah qofkii suuraddan laazimo akhriskeedana daa'imo binal albaari haddaba muuqaalkan intaan u guda gelin waxaan ka codsanaynaa muuqaalka laag saartaan hadduu muuqaalka ina cajab geliyo oo hadduu ku cajab geliyo waayo iska saar ma ahan haddii muuqaalka markaad daawatid kadib aad ka heshid inaad ka heshay muuqaalkan ood ku faraxsantaha uu ku cajab geliyey laag noo taabsaan u aragno in muuqaalkan uu wax taray kadibna janalka haddaad ku cusub tahay subscribe dheh oo gambaalka furo si barnaamijyada cusub oo mar walba aan soo geli doono insha allah janalkan inay kuu dhaafin ood ka heshid haddii aalid marka muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa suuraddan soo sheegnay suuraddu waa min acdami suura fi lqur'aan alkariim waa suuradda ugu weyn qur'aan kariim ku jirto waa suurad cajaa'ib fara badan oo ilaahay dhex dhigay waa suurad muraad walba loo akhrisado hadduu caafimaad ahaan lahaa waa loo akhrisadaa arsaaqda waa loo akhrisadaa guurka waa loo akhrisadaa awlaadda waa loo akhrisadaa shaqada waa loo akhrisadaa suurad wax aan loo akhrisan suuraddan ma lahan muraad walba aad leedahay adigu ma akhri karta keliya waa ma akhri kartaa wax walba u akhri suuraddan u akhriso ilaah uu ku sahlaya oo khayr ah biidni albaari haddaba marka suuraddan waxaan sheegi doonaa dariiqo cusub ama qaab loo akhriyo oo ilaah muraadka kuu sahlayo insha allah qaabka maanta aan sheegi doono ayaa suuraddan u akhrinaysaa si fiican noola socda insha allah suuradda marka horta magaceeda waa suurat alfaatixa waad garanaysaan waa acdamu suura fi lqur'aan alkariim waa suuradda ugu weyn qur'aan kariimka magacyo fara badan ay xambaarsan tahay suuraddan taariikhdeena haddii aan laga hadlan laga sheekeeyana kama sheekey karno waad ogtihiin saxaabada rasuulka caleyh salaatu wasalaam inay nin xanuunsan ku daaweeyeen kadibna maal ilaah ku siiyey ayagoo musaafiriin ah oo loo diiday in la martigeliyo xoole ay ku heleen martigelin iyo xoole ay ku heleen waad ogsoontihiin marka saas marka cajaa'ib suuraddan leedahay oo muraad walba aad leedahay ina akhrisato keliya umis ay kaa baahan tahay haddaba dariiqadan maanta aan sheegayno dhowr dariiqa loo akhriya suuraddan lagu akhriyaa habo far badan loo akhriyaa habka maanta aan sheegayno marka waxa uu yahay kow bacda salaat alcishaa salaada cisha kadib intaada seexan laakiin inaad seexatay aad doonaysid oo jif isku diyaarinaysid soo weyse qaado markaad soo weyse qaadatid tusalli 4 rakacaat lilaahi tacaala 4 ragcaad tukanaysaa 2 waa 4 ragco 4 ragco aad tukanaysaa biniyati qadaa ilxaaja adoo u niyeysanaysid in ilaahay muraadkaaga in ilaahay xaajada ilaahay uu kuu gudo markaas xaajada aad leedahay aad garanaysid ilaahna uu kula ogyahay xaajada ama danta aad leedahay 4 ragco oo qiyaam leyl aad tukanaysaa qadaa xaajana u niyeysanaysid in ilaahay muraadkaaga ama xaajadaada ilaahay uu kuu sahlo markaad ka baxdid salaada aad dhamaysatid waxaad ahaanaysaa mustaqbal alqibla qiblada ka leexan sidaadii aad u tukatay markaa fariisatid qiblada ku qaabil sidaadii ahaw tusalli cala الnabiy salى اllahu alayh wasalam 21 mara 10 jeer aad nebiga ku salinaysaa alayh الsalaatu wasalaam 10 jeer ku salinaysaa waxaan soo sheegnay saligeena salaatu ibraahimiya ayaa ugu fadli badan saligaas ka dhig allahuma salli calaa sayidina muxamed wacalaa aali sayidina muxamed
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد 21 مرة إلى هذا كوب لا تنجر كدبنا ذكرنا لا تسبيحنا تسبيحنا آخرنا ساعة سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته 7 مرات تتوجر الله ذكريان تسبيحنا تتوجر كل النساء سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته 7 مرات تتوجر الله ثم تقرأ سورة الفاتحة كدو أخرنا نساء سورة الرياض سورة الفاتحة أم الكتاب آخرنا نساء كوب إلا تنجر كوب إلا تنجر كلية آخرنا نساء سورة الفاتحة 21 مرة مركز سورة دميسيد قاعد كل أتاق نساء كدو إلى بريساء مرادك الله هاي حاجة الله هاي إلى وديس النساء إن شاء الله تعالى مركز سورة وحوالبا واتكهليسا بين الباري أرزاق وحد أنا كالمطر سيروب كي كوسوس المساء لا إنكس هذا الزواج عرس كافولي وضبحها سيلا وكفريا أولادي سيدو كله مرادك الله ذو كله عافماتك شقوينك نوع ضنها ذاك عشان يسي مهما كانت مرادك الله ذا نوع ضنها هذا إلى وكفريا إلى بري كوديسو إلى فلقيسا سورة حرمة إلى كل هذا هاي وتكل سمراتك إن شاء الله وأن أركض ونتابع مجربات والتجابي أدونا والحب كان وآخري وأن أركض إن شاء الله تأثير الدريم دون تسامن سورة إلى هاي سورة عجيبة سورة مراد كسن الله آخر صدا مراد إلى هاي يدير إلى هاي والله حقيقنا إن شاء الله إلى ذلك مركب مقال كان أنا أقول لي إنه ما أنت سورة الفاتحة طريقة أكو آخر دونت إن شاء الله هبكان أكو آخر دونتد أدينا سحبتين لو ذاك إلى إنكيس وهذا رجينا عافمات تامة أمر ديرو عباد صوبا له إن شاء الله تعالى إلى مراد كان أسهل دمانتين إلى مراد كان أسهله سورة بركة إلى مراد كان أسهله وبالله التوفيق والسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته